xalana waxaa qaati laga taagan yahay oo laga shaqeeyahay daanyaro muuqaalkan ayaan idinku soo gudbin doonaa xal ayayse u raadinayaan shaqaalaha ku sugan xalane muuqaalkan ayaynu ku eegi doonaa haddii aad nagu cusubteen fadlan ku soo biiro page-kan oo ka mid noqo saaxiibada inagu xiran si aad halkan uga heshaan warbixino muuqaal aan had iyo jeer halkan aynu ku soo baahino xerada xalane oo badi markay aad maqashaan idinku soo dhacaya in halka ay ku sugan yihiin ajaanib ama madax Soomaali looga yeeray balse sheekadeenu taa way ka duwan tahay xeradaasi waxa qaati laga taagan yahay oo laga shaqeeyahay daanyaro oo dhibaato adag ku haya xafiiska unsus ee Soomaaliya ayaa bogooda rasmiga waxa ay ku baahiyeen inay doonayaan in si rasmi ah talo looga siiyo xal u helida daanyaradan oo shaqada halka ka socotay ay caqabad weyn ku qabaan shaqaalaha u shaqeeya hay'adaha kala duwan ee degan xerada xalane waxay sheegeen inay u baahan yihiin in lagu biiriyo talo la xiriirta xal waara oo xayawaanada duurjoogta ah lagu xakameyn karo iyadoo aan waxyeello aysan ka dhalanaynin waxay sheegeen xafiiska unsus ee Soomaaliya in mararka qaar shaqaalaha ku sugan halkaasi ay dareemaan baqdin xoogan oo keenta in shaqada ay hakad gasho isla markaana jawi aan xasilooneyn ay dareemaan shaqaalaha iyagoo oo sheegay inay aad ugu soo badanayaan xayawaanka daanyarada oo halkaasi si toos ah ugu soo badanaya xerada xalane marka loo eego sheekadan dad fara badan ayaa ka falceliyay qaybta faallada iyaga oo wax lala yaabo arrintan ku tilmaamaya waxa ay sheegeen in halka wax ka soconaya wax ka weyn ay tahay in daanyaro ay ka cawdaan waxa ay sheegeen unsus in ay doonayaan in talo la xiriirta arrintan ay bulshada Soomaaliyeed ay u soo gudbiyaan hase ahaatee baraha bulshada ayayse sheekadan ka abuurtay hadalhayn fara badan oo la xiriiray in xilligan cabasho laga keeno daanyaro iyadoo oo dadka Soomaaliyeed isha ku hay waxa ka soconaya gudaha xalane oo ay sheegeen inay tahay wax aafeen kara nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya xerada xalane waxa ay caan ku tahay in halka looga yeero madaxda Soomaaliyeed ee mararka qaarkood marka khilaafyo ay soo kala dhex galaan dhexdooda heshiiska gaari waayo waxa halka ka soo baxa amarada ugu waaweyn ee lagu xakameeyo siyaasiyiinta iyo madaxda Soomaaliyeed aragtidaada qaybta faallada inoogu reeb xilligan waxa xerada weyn ee xalana qaati laga taagan yahay oo laga shaqeeyahay daanyaro aragtidaada qaybta hoose ee comment-ka kaga soo dhiibo sida loo xakameyn karo sida xafiiska unsus ay dalbadeen oo talada la xiriirta nabadgelyo